Banu Atiya oo ah gabadhii ugu horeysay Hinda oo ku guuleysatay abaalmarinta Oscar-ka oo geeriyootay. Banu Atiya oo ah gabadhii ugu horeysay Hindi ah kuna guuleysatay biladda Oscar-ka ayaa saakay geeriyootay xilli ay 91 jir ahayd iyadoo ku sugnayd gurigeeda ku yaala magaalada Mumbai. Sida ay saxaafadda u xaqiijisay gabadheeda oo lagu magacaabo Radhika Gupta, duqdan saakay ayay ku geeriyootay gurigeeda waxaana lagu gubay meydkeeda fagaaraha Hinduuska dhintaan lagu gubo oo loo yaqaano Gawandi kaasoo ku yaala magaalada Mumbai. Banu Atiya ayaana fanka Hindiya kusoo biirtay sanadkii 1956 waxayna abaalmarinta Oscar-ka ku qaadatay filimkii Gandhadi qaybtii naqshadaha ugu wanaagsan. Banu Atiya ayaana sidoo kale abaalmarinta National Award ku guuleysatay 2 jeer waxayna ku kala qaadatay filimada Lakin oo soo baxay 1990 iyo Lagan oo soo baxay 2001. Radhika Gupta oo ah gabadha duqdan geeriyootay ayaana sheegtay in hooyadeed 8 sano ka hor maskaxda uga soo baxday buro xilli 3 sano ugu dambeysay ay ahayd qof paralysis ah kadib markii xubnaha jirkeeda dhaqaajin weysay sabab la xiriirta buradaas. Ugu dambeyn maanta ayay geeriyootay.